jirkeena markay wax ka dhiman yihiin waxaynu dareennaa xanuunadaasi oo aan u aadin dhakhtar. haddaba waxaan ku xasuusinayaa xanuunka markii aad dhakhtarka u degtid isla markii waxa uu kuu soo qorayaa dawo. dawadaasi laba ayaa loo qeybiyaa: dawo markaasi xanuun adigu ku hayay ay sababtay bacteria ama virus, ama dawadaasi inay tahay wax jirkaaga ka dhiman. haddaba badanaa waxyaabaha jirkaaga ka dhiman oo markaasi aadan cunno ahaan u qaadan haddii ay jiraan, waxaa dhacaysa in xanuuno badan aad dareentid, sida tabardaro, madax xanuun, calool istaag, iyo mararka qaar inaad dareentid walaac. dhakhtarku markuu ku baaro laba si ayuu ku daweynayaa: inuu ku soo qoro wax jirkaaga ka dhiman iyo wax jirkaaga ku jira. haddii jirkaaga ay ku jiraan bacteria iyo virus iyo waxyaabo markaasi xanuunada sababaya, wuxuu ku dadaalayaa dawo la dagaalanta bacteriadaasi inuu kuu qoro. laakiin haddii ay wax kaa dhiman yihiin, fitamiin ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqdaan, wuxuu ku dadaalayaa inuu kuu soo qoro dawooyin fitamiino ah. tusaale ahaan waad aragtay markii dhiiggu uu kugu yaryahay waxaa lagu soo qorayaa sharoobo dhiiggaaga kor u soo qaada. haddaba haddii aad maanta madax xanuun dareemaysid, ama wax uun aad dareemaysid, hurdo la-aan aad dareemaysid, ama ay jiraan wax markaasi adi jirkaaga ka dhiman yihiin, mar walbo aad jirkaaga wax ka dareentid, ama kalagoos ha noqoto, ama muruq ha noqoto, ama lafahaaga ha noqoto, mar walba waxa aad ogaataa in jirkaagu wax ay ka dhiman yihiin ama wax markaasi ay kusoo duuleen sida bacteria ama virus. haddaba videogan waxaan kula wadaagi doonaa laba kiniini. labada kiniini mid waa minerals, midna waa vitamin. dhakhtar uma baahnid. waxa aad ka heli kartaa xataa dukaanada. xitaa haddii aad dukaanada ka helin, waxa aad ka heli kartaa cunooyinka qaar oo aan kula wadaagi doonaa. inta aan cunooyinka laga helo kula wadaag, waxaa laga yaabaa meesha aad joogtid inaan laga helin kiniiniyaashani, laakiin kiniiniyaasha qaar dadka qurbaha jooga badanaa waxaa jira qayb dhan oo loogu talagalay laga helo kiniiniyaasha ka kooban mineralska iyo vitaminiska. haddii aad u baahantahay waa soo gadan kartaa, waxaana isticmaali kartaa maalin walba hal xabo. haddii maanta reere sportis aad tahay oo aad murqa xanuun dareemaysid sportiga kadib marka aad ka soo baxdid, kadibna aad nicaysid sportiga, waxaad u baahan tahay kiniiniga magnesium la yiraahdo. wuxuu uu ka qayb qaataa in jirkaaga dhiiggiisa uu socodsiiyo. xitaa kiniinigan wuxuu u wanaagsan yahay dumarka. waxa uu fududeeyaa inuu socodsiiyo dhiigga xilliga ay xanuunka dareemayaan. badanaa sidaan ayuu u egyahay. mararka qaarna wuxuu ku jiraa caagadooyin, laakiin kiniinigan xataa waxaa ku jiro vitamin la yiraahdo B12. kiniiniga labaadna wuxuu yahay omega 3, sawirkiisana halkan uu kaga muuqdo. wax walbo afkeena aanu gelino waxaynu u gelinaa si jirkeenu ugu shaqeeyo, waayo waxaasi waxa laga helayaa energy. mararka qaarna waxyaabaha qaar way isla shaqeeyaan, sida kiniiniga magnesiumka wuxuu la shaqeeyaa calciumka si lafahaaga iyo galaguusyadaada u noqdaan kuwa ad adag. haddii maanta jirkaagu uu ka maqan yahay waxyaabaha qaar sida vitaminiska iyo mineralska, mar walba waxaad dareemaysaa jirkaaga waxaa ka dareemaysaa inay wax ka dhiman yihiin. meel unbaad ka cabanaysaa. mar walba waxaa wanaagsan inaad ka fikirtid waxa aad maalintii cunaysid inta xaddi ay la egyihiin. marka lagu dhahayo cunno nadiifa cun ama cunno dheelitiran cun, waxa ay tahay cunnadaasi inay wax walba ka kooban tahay. saxanka aad cunnada ku ridanaysid waa in saxankaasi wax walba uu ka kooban yahay. hadday dux noqonayso, hadday borotiin noqonayso, iyo hadday carbohydrate noqonayso, waayo cunooyinkaas oo dhan waa mid ku shaqaynaya jirkaaga si loo burburiyo. haddii aad reere jim tahay oo mar walba jimka aad tegaysid laakiin aysan waxba iska kaa bedelaynin, taa micnaheedu waxa ay tahay in jirkaagu ay wax ku yar yihiin ee aadan cunno dheelitiran cunin. haddaba labadan kiniini waxa ay ka qayb qaadanayaan in jirkaagu uu noqdo mid awood leh. haddii aad cunno dheelitiran cuntid, uma baahnid mararka qaar kiniiniyaasha qaar, laakiin cunnadaadu haddaysan dheelitirneen waa u baahan tahay si jirkaagu uu u dhammaystirnaado, wax ka dhimanna uu u helo, inaad kiniiniyaasha qaar fitamiinada ah iyo mineralska inaad isticmaashid. labadan kiniini badanaa faa'iidooyinkooda way soo shabahaan. haddii aan ku horumaro kiniiniga magnesiumka, faa'iidadiisa koowaad waxa ay tahay qofka isticmaalo maalinta hal xaba ka isticmaalo ama cunno ay magnesium ku jirto cuno, lama kulmayo calool istaag. haddii aad kiniinigan isticmaashid lafahaagu way adkaanayaan. xitaa haddii aad la isticmaashay kiniiniga vitamin B6 la yiraahdo, waxaa sahlanaanaysa in mar dambe ay hurdo la-aan kugu dhicin oo aad seexatid xilliga aad u baahan tahay. xitaa waxa ay ka qayb qaadanayaan inaad si fudud isku caataysid. haddii aad labadan kiniini isla isticmaashid, magnesiumka iyo B6 vitamin, mar dambe iskuma arkaysid dibro joogto ah. haddii kiniinigan maalinta hal xaba aad qaadatay magnesiumka ah ama cunooyinka laga helo aad cuntid, waxaa ka yaraanaya walaaca. cunnada laga helo waxaa ka mid ah sida kalluunka tuna la yiraahdo. waxaa kaloo laga helaa shukulaatada madow oo 85% ka samaysan kakowga. waxaa kaloo laga helaa mooska. mooskana ha iska badin, wuxuu uu leeyahay dibiro hal xaba kugu filan maalintii. waxaa kaloo laga helaa digirta cagaaran. waxaa kaloo laga helaa bariiska buniga ah ama bariiska madow. iyo weliba waxaa kaloo laga helaa magnesiumka bahalkan la yiraahdo spinachka. xitaa kugu dhici mayso xanuunka la yiraahdo neefta. mararka qaar haddii aad dareentid dabardarro iyo inaad waxba qaban karin, inaad energy la-aan dareemaysid, haddii aad kiniinigan qaadatid wuxuu uu kuu sahlayaa oo ka qayb qaadanayaa inaad active ahaatid. xitaa mararka qaar haddaad inta biyo cabtid isla markii aad musqusha aadaysid oo aad kaadinaysid oo aad isleedahay maxaa ka qaldan kaada heestaada, haddii aad kiniinigan isticmaashid
ma noqonayso qof isla markuu biyo cabo hore musqusha ka aada. qaadashada kaniinigan ama cunooyinka ay ku jiraan magnesiumka waxa ay ku sahlaysaa kaaga uu nuugo macdanta ay u baahan tahay. sida aan hore kuu sheegay labada kaniini omega 3 iyo magnesium faa'iidooyinka ay leeyihiin 90% waa isku mid. haddii aan u soo laabano omega 3 wuxuu u wanaagsan yahay indhaha xataa araga. ta omega 3 wuxuu u wanaagsan yahay sida maskaxdaada u shaqaynayso, waayo waxa laga sameeyaa kalluunka ama malaayga. qofka qaata kaniinigani waa ka yaraanaya haddii uu wadna xanuun qabo ama waxa dhacaysa in wadna xanuun qofkaasi uu ku dhicin. haddii maanta jirkaaga dhawaq ka dareemaysid, taa micnaheedu waxa ay tahay in wax uun kugu yar yihiin, ama lafaha ku xanuunaan, ama lugaha ku xanuunaan, ama timaha ku daataan, ama aragu ha ku yaraado. mar walba niyadda waxa aad ku haysaa waxa aad cunaysid inay ahaadaan wax dheelitiran oo naftaada muhiim u ah. haddii aad wax dheelitiran cuntid oo aad ka fikirtid waxa aad cunaysid, murqahaaga, lafahaaga, maskaxdaada iyo tintaaduba waxa ay noqonayaan kuwa aad ku farxdid ama aan dhawaq ka soo yeelin. waa saaxiibka Shaahid Baysani. haddii aad videogan ka heshay, asxaabtaada waa la wadaagi kartaa. wixii fikirkaaga comment waad igula wadaagi kartaa. meel walba dunida ka joogta Allah kugu xifdiyo. caafimaad ku noolow. Assalaamu calaykum.